magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay mayba mudooyinkii ka dambeeyay ku dareeray xil wareejin iyo suubiyayaan wasiiradii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya maybana geeka si rasmi ah xilsheyn la wareegay wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xuseen Xasan John goobta xil wareejinta oo haytay xarunta wasaaradda garsoorka mayba ka suganayay wasiirkii hore ee wasaaradda garsoorka wasiir xildhibaana guddiga xil wareejinta Koonfur Galbeed qareenada maxkamado qaranka ee Koonfur Galbeed saraakiil ku ciidamada asluubta ee madax kala ugu horeyn mayba goobta ku hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda Sheekh Xasan Ibrahim Lugboor maybana uu ku sheekay heerarka shaqadoonay ee wasaaradda hamartay maybana uu wasiirku cusub uu ku wareejiyay dhamaan agabkii wasaaradda gaadiid shaqaale iyo dukumeentiyada yeelahay wasaaradda garsoorka wasiirka cusub ee wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xuseen Xasan John oo soo goobta xil wareejinta ku hadlay iyo muujiyay in howlo aan ka horeeyo uu ku qabado doonayo ayeen sidii xuquuqan hal lahaayeen laamo garsoorka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo hata wal mushaarayo aan qaadana wasiir iyo hadda dareemo in iyo karan degajin isa soo kala baabuur inuu ku wareegno ilaahay qadari daban cunuuna may rajeeyanaha hadii uu aan wasiiradii cusub gaar ahaan wasiirka cusub anaha garsoorka in ana meeliyaha dirogdu ku sii qaado doona jeey doona dabcan meel baryeelanka kooyo usuna ku sii wada karo lagu shaqeeyo doona guud ahaan ma nagay dadkii la shaqeeyay wasiirkii hore oo guddiga adeega garsoorka iyo guud ahaan garsoorada iyo asluubta iyo booliiska dadkii la shaqeeyay ma nagay oo sheeni dabcan geeka meelon la kafaana karo in uu kooyno xilka la shal wareegna waayo dhinaca garsoorka meelageeka uu dareemano meelo walku qabasho baahan guud ahaan Soomaaliya ma ay kaliya dibkaas Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhan ya ku jarta culeysyo oo dhinaca cadaaladda ah in wal uga wadano in baahanyi shakhsi iyo wasiir la bedeli dabcan wal isbedel mashaana karo ma isbedelka kooyay in la wada shaqeeyo guud ahaan wasiirku cusub la sheenay in dadkii hore in la shaqeeyay wasiirkii hore in iyo wada shaqeeyno istiraatiiji cusub wada degsadaan oo ka xaqeejiyo koran cadaaladda taasna mayba taa shaqo oo dhan intaala oo dhan sugaw may ilaahay ku rajaynaha in oo xilkoona qaadneen in ka aabayna geeka ani rooga barlanko kala kooye walaaguna waa silsile iska hirin مسؤولية لانكولي إن سرّيمة وسلسلة سكيرين شغالة كان كهوس جرا هابوس إن contribute جرينا أما والإنجيسنا كان سر مقولي سلام فكان ما يلف هذا كي إذا جرسورو جرسورياش نفتيو أو محكمة ذا أسلوب إيو قيبتان وننقر ذا نفولينت وحيابه لحكم إن فوليان لو فضاء وبوليسته إن وذا الشقيان طبعا تصاميك كويسة حرمر iyo cadaalad kamir dhala karo daban la kanaabsado karo hadalka mabadiyaw kulay taariikh iyo wali hamartii wasaaraddan way ku sheekay wasiirkii hore ana maylay lahaay in oo dadaalkiisu hagalay iyo teamkii shay oo la shaqeeyay aan mahadnaga iyo in aan ballan qaada in si la shaqeeyay doon si la shaqeeyay ku fayl masan araw waayo bani aadan leeyahay cusub ee wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xuseen Xasan Yelen ku fadhi inuu su'aal badan ku qabada adeegyada dhinaca garsoorka iyo cadaaladda oo haan ku muhiimsan nolol aadanaaga Maxamed Nuur Maxamed Cabdullaahi telefishinka caalamiga ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Baydhabo